maandeeqi gobolada waa beri baa qaaday heestan afka habeenina good alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أخيار وسلم تسليما كثيرا الحمد لله waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baan idin leeyahay meel kastood caalamka ka joogtaan shanta qaaradood waa idin salaamayaa dhammaantiin bacdi salaam waxa weeye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الرحمن كأحبان مغنغلينا ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد عبدك ورسولك النبي أمي كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمد مجيد الحمد لله أما بعد waxaan rabaa oo aan maanta rabaa inaan ka hadlo oo u soo galay xaqiiqatan dhibaatooyinka ka jira gobolada Soomaaliya dhibaatadu meel walba dadka waa ku haysataa oo dadku dad dawlad xoog leh wadankooda maamusho oo kulli ay 8 rijoonaba gaadhay ma aha 30 sanana dadku waa ay dawlad la'aayeen waana ay dhibaataysnaayeen dagaal iyo rafaad iyo abaaro iyo biiqaad iyo baliya baas bay ka soo daareen saas oo tahay maanta meel lagu naaloon karo bay dawladayadii maraysaa waxa weeye
marka ugu horeysa waxaan ku hormarhayaa dadka dhibaataysan oo gobolada Soomaaliya qaarkood aad dhibaato u culus ay uga jidho oo aan laga aamusi karin, indhahana laga qarsan karin, dhagahana laga daboolan karin. waxa weeye gobolka haatan dhibaatada ugu daran oo ay ka taagan tahay waxa dhiig qubanayo, dhiig joojinta u baahan waa gobolka Jubbaland oo eber beela isaga dhigeen. oo waxa weeye muxuu ahaayeeto maamulkan fayga ah oo awalba ka jiray oo aan awalba dadka wax taraynin oo haddana ka shaqaynayo si uu cimri dheer u helo inuu isku dilo beelaha wixii maaragtay la geli karo oo aan waxba garanayno la isku diri karo, inuu madaxa isu geliyo oo isku diro. markuu isagu arrintiisii iyo shaqadiisii iyo maamulkiisii ku fashilmay waxna qaban waayay, uuna arkay in dawladii Jamhuuriyaddii Soomaaliya ay ku soo food leedahay, buu yiri ka sii faa'iideyso dhiigu ha qulqulo. labada beelood oo ku dirirhaya Jubbaland waxaan leenahay joojiya dagaalka. xilli maanta la dagaala lama joogo, 2020 baa la maraya. dagaal waxaa idinku filan dhibaatada idin hoos taalla, maamul xumada idin haysata, dowlad la'aanta idin haysata, dhaqaale la'aanta idin haysata, dayaca idin haysata, isbitaal la'aanta idin haysata, waxbarasho la'aanta idin haysata. wax allaaliya wixii beeraha ka soo go'ana waxa weeye qaarna shabaab baa qaadanaya, qaarna ciidankan mataqaanaa ee taliska liita ee Axmed Madoobe qaadanaya. waayo waa nimaan dad u naxayn, waa nimaan diin ka naxayn, waa nimaan dad ka naxayn, waa nimaan rabbi ka baqayn, waa nin wuxuu doono samaynaya, waa nin qar iska tuura. dadka bini aadanka Ilaahay wuu ugu talagalay inay gafaan, raalli buuna ka yahay, haddana soo noqdaan. addoon baa tahay binu aadmiya, gaf laakiin soo noqo. inuu soo noqday ahayd weli waa madax adag iyo waa isii maqiiqaya, waa qar iska tuur. marka hadana inuu iska tuuro weeye. marka waxa weeye marka aad baan uga xumahay maaragtay dhiigga maanta ku daadanaya iyo dhaawaca maanta dhimashada ka taagan maanta ee Jubbaland iyo dhimashada iyo dhaawaca ka jooga. aad baan uga xumahay. qof kastoo Soomaaliya oo damiir leh oo diin leh oo Ilaahay ka baqayana waa ka xumaanaya. xilliga maanta Soomaali inay isu gumaado qabiil oo waa hore laga tegay. marka waxa weeye maamul la'aanta iyo dowlad la'aanta meesha ka jidhaana dhibaatadii waa sii badinaysaayo. markii ay bilowga ahayd haddii la joojin lahaa oo dowlad ay joogi lahayd meesha oo la istaajin lahaa, ummad badan uma dhimateen. walow waa aakhiru zaman ay tahay oo ummadda Nebi Maxamed iyada la isku halaagahayo, waa ogsoonahay taa, Ilaahay waa noo sheeg. laakiin Ilaahay baryanti iyo bilaash ha loo dilo qof dhiigi ma uu oran. aad buu uga caroonayaa, aad awal buu caroodo Soomaaliya cara alla ku socotay. haddana waa kana waa baryo cara la siyaasanaya. Ilaahay laga baqi maayo, diin lagu dhaqmi maayo, baadilnimo ka socota, baadilnimo. waxaan leeyahay intii dhimata Allah u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay ha booga dhayo oo ha u caafiyo. kuwan wax isku dirahayo, dadka isku dirahayo oo maaragtay ku taageerahaya inay islaayaan ummadda Allah ka qabto. Ilaahay ummadan dhibaato waa ka soo daashay ha ka qabto. maanta oo kale waxa la rabay inay dhibaatadii ay soo mareen waayo arag ku noqdaan Soomaalidu, inay waayo arag ku noqdaan oo ay ka qaataan fikrad dheeraada ka qaataan. oo dhibaatadii ilaa 91 haysatay iyo dilkii ama qabaa'il ha ahaado ama kooxeed ha ahaaday inay ka feejignaadaan bay ahayd oo experience dad helay ay noqdaan. saacadaani waxay taagan yihiin 91kii sidii la isu dilay, sidii la isu dhacay, sidii la isu gumaaday. in la isku gumaadaa waa jaahilnimo, jaahilnimo aabaheed. waa aad baan uga xumahay dagaalka ka socda Jubbaland, iyadooba mataqaana awalba ay dhiig joojin u baahnaayeen oo dad baabi'i waaye ahna Axmed Madoobe cagta mariyay. cagta nin waxgarada ka dhowray, nin isina ka dhowray, nin cilmi la ka dhowray, nin ganacsada ka dhowray oo isaga iyo ciidanka Kenyaanka ah oo meesha mataqaana tuubada dhiigga dadka ugu jidho, afka tuubadii dhiigga dadka ugu jidho ay baaba'asheenba. baa haddana maatadii uu isku sii daro hub isku sii dhiibay, baabahaba isku noqdeen. marka waxaan rajaynayaa inay
isimada iyo mataqaanaa kala dhex galaa iyo shacabka wixii waxgarada ragga waxgaradka iyo dumarka waxgaradka oo Jubbaland jooga inay kala dhex galaan dadkan shacabka maanta dawladdu haday dawladdu joogto meesha haday dawladdu joogi lahayd ciidamay dhex dhigi lahayd waa la kala dhex gali lahaa waa la kala baajin lahaa maanta dhiigga daadanayo qodobkaas intaasaan uga baxaya waa qodobka Jubbaland oo murugadiisu nahayso waxaa kaloo dhibaato badan ba'an ka jidhaa oo aad u ba'an oo basanbaasa oo maaragtay shacabkii cabanayo oo gabdhihii suuqa lagu boobahayo masaakiinta ayo caruurtooda u shaqaysanayo awalba ninkeedii gabay oo agoonta korsanayay oo cabaadkooda iyo calaacalkooda iyo problemkooda uu soo gaaray miidiyada caalamka iyo facebooka iyo meel walba waxa weeye gobolka Puntland dayac badan baa ka jira dhibaato badan baa ka jidha haba kala daraate oo hadda intii 8-9 bilood gobolka Puntland dhibaato badan baan ka maqlayn weligii baa waa laga maqlay laakiin day waxaan oo kale ma dhici jirin dhibaato badan baa laga maqlay waxa halka dadku ka cabanayana waa maamul goboleedka Puntland weeye waa maamul goboleedka Puntland maayarka xukuma oo Siciid Cabdullaahi Deni iyo de maamulkiisa iyo xukunkiisa isagu samaystay haday baarlamaanka iyo haday wasiirada tahay iyo haday ku xigeenna yihiinba waa maamulka Puntland ka jira maamul dhicisuhu noqday oo dhicisoobay maamul wuxuu noqday dhibaato ay ku ragaadiyay dadkii waxuu soo kordhiyay Deni sidii xukuumaddiisa loo doortay oo aan dhibaato ahayn ma jirto ilaa iyo hadda waxaasuu soo kordhiyay iyo waxaasaa dadkii maaragtay ku soo siyaaday ma jirto waa hadday wax dhan walba wax soo siyaaday ma jiraan waxaa soo siyaaday dhibaato waxaa soo siyaaday kufsi waxaa soo siyaaday dil qorshaysan waxaa soo siyaaday xabsi waxaa soo siyaaday inaan la hadli karin waxaa soo siyaaday caburin waxaa soo siyaaday goodi waa inta ilaahay ugu neceb yahay dadkuna ugu neceb yahay dadka bini aadanka inta ugu neceb yahay weey wax horumarina oo uu sameeyay dhan walbaba ka eeg ma jirto dhan walba bal ka eeg ma jirto xaqi waxa muhiimadu waxa weeye adeega bulshada male caafimaad male waxbarasho male maxaan ku iraad amni male sababtoo ah in ay amni hesho Puntland Deni uguma talagelin wuxuu ugu talagalay Puntland inuu kala jarjaro qabaa'il u qaybiyo gobolba margoo qabiilba margoo de isaguna halkaas de awal boqol u shaqeynaya inaga inooma shaqeynay wax Soomaali la dhoow shaqeynaya ma jirto gobolka uu joogo oo hadda isagu maamulo dadka degan ee Soomaaliyeed Deni uma shaqeeyo shuqul la kuma laha mas'uul la kama aha sababtoo adu wax mas'uul ka ahan la waxun buu qaban lahaa dad kale u shaqeeya imaaraad buu shaqeeya meesha uu jooga dulaal uga yahay waa dulaal ninka waxa nimcooleyda ilaahay Puntland ku abuuray buu dulaal ka yahay isaguna mushqayadiisu ka qaata xogaagiisa sandareertada uu ka qaata wax uu u shaqeeya dadka wax uu mas'uul ka yahay wax uu caawa u qabanaya ma jirto danta imaaraad buu fulinaya isaguna xoogaa buu rabaa inuu jeebka ku shubto oo gabdhahan balaanbalahayo hooga baahayo askartu dhacayso la gabagabaynayo ka cabaadahayo mataqaanaa boosaaso ka cabaadahayo waa gabadhii afraad oo aan maqlo waa gabadhii afraad oo aan maqlo odayaashii hadlayna waa la xiro gudaha la dhig waa la xiro waa xiran yihiin alabaqay ku jiraan bilaa sharci bay ku xiran yihiin tanna ama ha xiran ama ha dilaan waxay rabaan Puntland ku sameeyaan Deni iyo kooxdiisu waxay rabaan ku sameeyaan dadku dhamaanayo waxba haraya ayagana baal madow bay ka galeen taariikhda Soomaaliya waana la iska qabanaya awal buu dhaqaale iyo bad iyo buuro iyo adduun iyo dahab wareejiyo mataqaana xoogaagiisa xafiiska loogu keenayo imaaraad iyo calooshooda u shaqaystayaasha South Africa ku amray haddana wuxuu keenay inuu askarti ku amro maxaan ku iraahdaa gabdhihii iyo dadkii masaakiinta ahaa iyo shaqaalaha ahaa shaqaalihii hoose waliba ganacsatadii hoose shaqaalaan sorry ganacsatadii ayuu ku amray oo ka qaata lacagta ila biil uma wahaye xoogaaga imaaraadka dulaalka uu ka qaata no accountadiisa galaysa canshuurta dadku bixiyo accountadiisa galaysa wadama dhisin wadooyinka waad aragtee
all Puntland oo hal wado la marmale wada cado jid cadala dhoo ba shacabku samaysta oo iska wax u qabso ku samaysteen oo dhagax gacmahooda ku jabiyeen gacmahooda iyo faas iyo sabarad bay gacmahooda ku jabiyeen shacabka bari iyo Highland iyo Sanaag ma waawin meel uu u dhisay ma jiro dekadii waa ka xiranta dekadii cashuurtu waxay uga soo dagaysaa Berbere iyo Muqdisho intaasoo cashuur bay bixinayaan intaasoo baabuuray ku soo qaadayaan mataqaana lacag ku soo qaadayaan kiraa markay Puntland timaadana waa la cashuuraya haddana cashuurtii uu dhabal ka dhiga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ya arhamur rahimin waxaasoo kale naxariis ma ah waxaasoo kale maamul ma ah waxaasoo kale islaamnimo ma ah waxaasoo kale wax la dhowran kara ma ah waxa weeye waxyaalaha ka socda Puntland maanta waayaha kan oo dhan waxa ka socda wax shahaadada islaamku afka saarawa wasaas waxaan dhibaato ahayn ma soo kornin waxa gabar ooyeysa waan ka xunna gabar Soomaaliyeed oo askari Soomaaliyeed ama maamul Soomaaliyeed ama nin Soomaaliyeed ka oohinayo Puntland baa noogu horeysay oo markaan ka soo reebo gabdhihii Xasan Sheekh Maxamuud ka gatay Sacuudiga markaan ka soo reebo gabar ooyeysa waa Puntland wuxuu bilaabay jeel ogaadeen waxay ku hayeen maxay tahay reer Gabriel New Police ina ilay joogal ogaadeen waxay ku hayeen oo gobolkaas mantaqa Somali State raadkoodii buu qaaday raadkoodii iyo Muuse bixiyo yiri qof allaaliyo qofkii hadla xira labada meelood waxoodii xumaa oo dhacayay oo ka dhacayay ficilkii xumaa oo ka dhacayay buu soo qaatay markaas wuxuu ku beeray Puntland oo aan laga aqoon ba dhaqankaas waxa uu sameeyay wax loo adkaysan kara ma marka waxa la yahay dadka reer Puntland dadka ganacsatada iyo shacabka iyo wax allaaliyo waxa dhiban ee maamulka dani uu dhibahayo waxa weeye war alla barya Allahina barya Allah idinka dulqaadi kare wallahi man cid kale idinka dulqaadi karin Allah barya gacmaha u taagta oo quluuda oo Ilaahay uu qalwado xukunka baadilka oo qurunka oo jaajuusku xukuma oo kulligood jaajuuska imaaraadka oo rabbiga caalamiinku inuu idinka qaado war wax kasta ha sameeyay haduu jaajuus ahaan lahayn oo imaaraad iyo Kenya u ahaan lahayn afayeenka Puntland maciil baa qabi lahayd ama adeegaha Puntland wax kasta oo sameeyay macna ka xumaaneen shakhsi Soomaali oo nagu xumaaday buu noqon lahaa oo nagu xumaadayo maamulku ku fashilmayo dadka aan wax matara dhihi lahayn laakiin ninkan waxaan aad focus ugu saaraynaa waa jaajuus adoo qowmiyad kale u adeega uma adeega Soomaaliya uma adeega Puntland shuqul nuguma laha bilaa calayk ilaahay baa laga baqaa ma aadni baa laga baqaya runta ninkan sheeginu been buu sheegaa ilaahayna run sheeg waa neceb yahay laakiin dadku waa neceb yihiin ilaahay run sheeg waa jecel yahay laakiin dadku waa neceb yihiin qofka runta sheega runta sheegayna ma qarinayna anagu wax allaaliyo waxaan indhaha yaga ku aragno meediyada la soo galiyay oo intaas oo meediya ah ka hadlayso aan hal qof iyo laba iyo saddex ka hadlay oo intaas oo jeero dhacdooyin dhacaya baa sheegayna wax allaaliyo waxaan maqal waa sheeg dani ha iska qabtaan reer Puntland dani ha iska qabtaan Aranjan ha iska qabtaan koobiga uu ka soo qaaday maxay tahay ina ilayo hadda sanad xiran wuxuu sameyn jiray iyo Muuse bixiyo ana rabbukum al-a'la yiri koobiga uu ka soo qaaday oo uu Puntland ku dhaqahayo ma rabno afweeye ma rabno dooni mayno diidne كاكا شعب يوم ماشو اسكعلي يروحوا اسكت طورة مع آرن شانكيس مع أسكرته واحد رعسن تلياش الرعسن ودن نجح وقصار مقالوني مظاهرات هكلا جوجنين يحاسوا كلا واحد لقى مظاهرات وين مين قبل هذا الكلام مقال مين يقول بقول كإذن تجين يا مين ضمير لهين تقبل هو إكسامبل لكن هو واحد كتير واش قبله وإكسامبل لكن ووحا كتشير بطلان ماذا سالكاسان وهراي waxa weeye oo aan kalo hadda sheegaya ama aan ka hadlayaa haweenka Soomaaliyeed gobolka Puntland ba maanta fakistayda aad aan u saaraya haweenka Puntland ururka haweenka Puntland kama dhisna miya
waagii ay joogtay caasho geelle urur khatara oo waddanka dhanba isku haya oo xataa dowladda haga bay lahaayeen reer Puntland. caasho geelle waa la cunay. maxaa loo cunay? waa muwaadin bay ahayd, wadani bay ahayd, wadani halyey ah oo cilmi leh oo ilaahay taqaan oo cadaalad ah. haweenku marka aad bay u shaqaynayeen xilligaas. intii ka dambeysay ururka haweenka Puntland ma shaqeeyo, waa fadhiid. booskoodiina wuu gabay. maxaa loo doortay horta? arrimaha qoyskiiyo caruurta iyo dhalinyarada loo doortay. maxaa loo doortaa? waa gabeen booskoodii. imaaraad baa afka u buuxiyo gabadhihii shib bay dheheen badankooda. ayo qof af loo buuxiyey ma hadlo. waagii hore way hadli jireen, xaqi sheegi jireen, dhibaataday soo gudbin jireen. uu shacabku qabo, qoysku qabo bay soo arrimaha qoyska dhibaatada ka jidhay soo gudbin jireen. laakiin nin wax ka qabanaya xilligaa joogo loo soo gudbin jiray yaa hadda wax ka qabanaya. maxay ku nugtaa? maxayse ka nugtaa? waa isku basbeesh. gobol walba dhibaataa ka taagan. waxaana ugu daran gobolka bari oo targetka dani uu yahayba inuu bari cagta mariyo. hadduu qaadi karo inta qaaduu imaaraad geyn lahaa, laakiin ma qaadi karo gobolka. waxaa ku xiga gobolka mudugna basanbaas baa ka jira. gudoomiyaha gobolka mudug ama magaalada gaalkacyo axmed muuse nuur yare waxaan u sheegayaa ama aan leeyahay, walaalow hudheelaad furaysaa shan dabakha, horumar baan gaarnay baad leedahay, gobolkii daadax buu noqday baad leedahay, wiilashii iyo haldoorkii magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudugna assassination dil qorshaysan baa lagu dhameeyey. waxna kama ad qaban, adaana gobolka gudoomiye u ah. waxaad ka qabatayna ma jidho. guryaha aad furaysa iyo wadada aad xaqaaqayso waxa kaaga fiican adoo wiilasha badbaadsha. waxaan la hadlahayaa axmed muuse nuur, gudoomiyaha gobolka mudug magaalada gaalkacyo. waxaan ku leeyahay ragga badbaadi. hoteelan rag dhistay oo niman bisan usoo dhistay ha isugu kaayo soo sawirin inaad xariga ka goyso. maxaa xarigoyntooda kaaga galay? wiilashiiba hoostaaday ku baabi'een. xariga ninkan hudheelka uu dhistay aad ka goynayso waxba noo faa'iido nooguma jidho. magac iyo muradna ku helmaysa. ama isku sawir ama ha isku sawirin. gudoomiye aad iyo aad u dayacan tahay hawshiisii baa tahay oo hawshiisii kasoo bixi waayey. maalin walba wiilkiin ka dhaqaaqahaya mataqaan reer gaalka ayaa lagugu hordilay. sooma qabanaysa mana iska baaraysa. markee dantaadaad wadataa, dan shacab ma wadid. intereskaagaa meesha galay. waxaad dilahaya uma usoo qaban weyda ama wax uga qaban weyda. magaaladoo dhan badow haddii laga dhigo ee mataqaana ciidan wado walba lagu filiyo waa lasoo qaban lahaa. nabadda inaad adkaysaan bay ahayd. amniga gaalkacya iyo amniga boosaaso farahuu ka baxay. gudoomiyayaashaas ha iscasilaan. gudoomiyaha boosaaso ha iscasilo. gudoomiyaha gaalkacyo ha iscasilo. ka taga shaqada, waxba qaban maysaane. nooga hor wareega dadka. bilaash maad mushaarka uga qaadanaysaan cashuurta habruhu ka shaqeeyaan yaanyada iyo jaadka. naga hor wareega. qayr mas-uuliin baad tihiin. baxa dani iyo idinka iyo baarlamaankiisa iyo maxaan ku irahdaa arinjan iyo kulligin banad allah idin saaro. rabbigay banad ha idin saaro, ha idinka qabta ummadda. qodobkaasna intaasaan uga baxaya. aad baan u xanaaqa markaan soo xasuusto gubaadka iyo dilka iyo dhaca iyo caburinta iyo cagajuglaynta iyo goodiga. waxa facebook aan ka arkay wax la fiirsan kara ma aha. dhalinyara ku talinaysa ninka hebelu saasuu yiriye ha loo goodiyo ama ha la dilo. waay loo dilaya. waay wadankuu leeyahay muwaadin weeye, xaq buu leeyahay inuu hadlo wixii xun sheego. haye waxaa kale oo meeshaan jira oo aan ka hadlahayaa masiibada ugu weyn ee dalka yaga haysata markaan magaalada muqdisho ka saaro. gobolada kale ma 7 mise waa 8 I don't know. masiibada haysataa waxa weeye
saddex waxyaalood baa jira saddex waxyaalood in laga takhaluso aniga igula qumanta ummadda Soomaaliyeed waa saddex waxyaalood oo gadaal inoo ka yimid oo qabyaalada faleeba u ah oo taageeraya qabyaaladay taageerayaan saddexduba qabyaaladay taageerayaan qodobka ugu horeysa waxa weeye in ma taqaanaa calaladan xunxunka ah oo gobolada ka suran Muqdisho alla waa ka badbaadshay nimanka Muqdisho degan waa muwaadin weeye waa muwaadinka Soomaaliyeed waayo calala ma ay suran gabra keenay iyo minisanaawi iyo mehiga uma sura meelaha ma aragtay madaxdoodu fariisato calalada xunxunka in la tuuro calanka buluuga la suro weeye oo la iska tuuro qabyaaladu matalaya wax kale oo matalaya ma jiro iyo gumaysi ficil gumaysi qabyaalad iyo ficil gumaysi buu matalaya calalka saddexda kalaraho minisanaawi sameeyo Soomaaliya ku qaybinayo magaalooyinkaas dhan suran Soomaaliland buu suran yahay Hargeysa iyo meelaha kalaba Garowe buu suran yahay iyo meelaha kalaba gobolada kalaba Jubaland buu suran yahay Kismaayo Baydhabo buu suran yahay wuxuu suran yahay meesha Iken Jowhar kulli waa suran yahay gabra keenay oo South Africa qabyaaladii kala qaybsanaantuna taageeraya wax kale oo inoo ku fadhiya ma jirto hal laga tuuro gobolada uu suran yahay iyo meelaha ay ku sharaxdeen dadka goboladaas maamulada xukuma waagi hore gabra xukumayo ay ka amar qaadan jireen kii yimaadaba hadii la ceyshay xataa ma ka amar qaadanaya maraadkii gabru ku soconaya mid taas weeye midda labaad waxa weeye aeroboorada Soomaaliya oo loogu magac darayo ragga halyeeyada ahaa oo dhintay oo la leeyahay aeroboor hebel sida hadda aeroboorka Muqdisho la oran jiray aad buu sharaf badnaa caalamkana caan buu ka ahaa laakiin hadda intii loo bixiyay aadan cadde waxa weeye caanba ma aha waxa loo qabaa company inuu leeyahay company leh magaciisa la moodaya sababtoo ah kambaniyashu aeroboorada yaryar oo ay businesskooda u samaysteen iyo inay gobolada la isaga goosho ba magaca qof loo bixiyaa waa International Airport Muqdisho ma ahayn ba in aadan cadde loo bixiyo midda kale aadan cabba aeroport in lagu sameeyo wax ka weyn buu naga mudan yahay waa madaxweynihii ugu horeeyay cadaaladda ah ee Soomaaliya waa madaxweynihii ugu horeeyay ee cadaaladda ah dadku u sinaa waa madaxweynihii ugu horeeyay ee wadanka hormariyay oo diiday qabyaaladda maba istaahila aeroport xuno diyaarad ku soo degayaan in loogu magac daro madaxweyne aadan Cabdullaahi Ismaan aadan cadde inta la loo dhisay ahayd taala in loo dhisay ahayd ma ahayn in aeroportka diyaaradu xaq uga duulay siigada meerana in lagu sameeyo wuu ka weyn yahay wuu ka qiimo badan yahay ma istaahilo waa nooga qiimo badan yahay aadan cadde halyeeyga Afrika bilada Nobelka la yiraahdo ee nabadda iyo maxaan ku iraada sharafta iyo horumarka buu Afrika qaaday Afrika oo dhan buu aadan cadde qaaday aadan Cabdullaahi Ismaan Allah ya arhamur rahimin janna firdawsa Allah geeyo muwaadin aad u qaali u aha wadani aad u qaali u aha nin la heli kara ma aha airport wax ka weyn buu naga istaahilaa in loogu magac daro Allahu musta'an waxa soo haray anigu aeroportka kale kuma arage aeroportka laba aeroboor oo ku taala ma aqaankii Boosaaso wax loo bixiyay laba aeroboor oo ku taala Garowe oo la yiraahdo Maxamed Abshir Hamaan malaha dadku ma yaqaanaan qiimihiis laakiin way maqleen waa general nin qaata general Soomaaliya forever xilligii ugu horeeyay nin Soomaaliyeed oo general qaata Maxamed Abshir Hamaan buu ahaa waa halyey ciidanka booliska Soomaaliya ninka dhisay waa ciidanka militariga Soomaaliyana general Daawud baa dhisay taalay nugu leeyihiin bugaagta in lagu qoray nugu leeyihiin iskuulaadka in lagu dhigay nugu leeyihiin aeroboor xuno diyaaradu ka gooshayeen oo waliba jidcada in loogu magac dara maaha aeroboorka Garowe dhaha gegada diyaaradu ka haadaan ee Garowe taa dhaha
maxamed abshir hamaan waa ka weyn yahay wax aeroboor loogu magac daro midda kale location ma aha meel mataqaanaa nin business uu leeyahayo company oo aeroboorada diyaaradaha businesska gobolada iyo wadamada ku aado ay kusoo degayaan ma aha international garowa waa international garowa waa soo aeroboorka internationalka garowa dhahano ka joojiyo odaga waxaas ma istaahilay waa nooga qiimo badan yahay generaalka ugu horeeya Soomaaliya waa isaga general Daawud oo militariga haysta waxaa kaloo halka kan ayadana ka suran ninka la yiraahdo iikan hargeysana waxaa ka suran ama loogu magac dara maxamed ibraahim cigaal waxaas waa ka weyn yahay ra'iisul wasaaru soo noqday halgamaa buu ahaa ingiriiska dadkii la halgamayay buu ahaa dadkii wuxuu ahaa reer waqooyi ka dagaalahaya isaga iyo aabihiiba xaaji ibraahim aeroboor in loogu magac daro waa ka weyn yahay qaymo ka badan buu noogu fadhiyaa maxamed ibraahim cigaal nin muwaadin oo la yaqaan oo buugaagta ku yaal weeye waxa weeye marka raggii soo halgamay wadanka wax u soo qabtay oo magac lahaa oo taariikhdu qorayso in iskuulaadka lagu dhigo in buugaag laga qoro in museumka la dhigo in mataqaana bay u baahan yihiin aeroboor xina in loogu magac daro oo diyaarada ka duurahayaan oo siiga miran oo aan hataa sida adduunka u dhisnayn oo ma istaahilaan waa ka weyn waa nooga qiimo badan yihiin baan ka wadaano waa nooga qiimo badan yihiin waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay iska daaya qabyaalada waxa heerkaas aeroboorada loogu dhigayo magacyada waa qabyaalad waxa heerkaas calalada xunxunka uga babanahayaan meelaha xafiisyada ay ku leeyihiin nimanka maamulayaasha waa qabyaalad iska daaya qabyaalada khaaf rabbuka ilaahay ka baqa waad u jeedaan coronavirus annaga qabiilka nooga daran waxba nagama dhimaayo coronavirus kana baqaymayno maxaa yeelay qabiil baaba nabaabashay qabyaalad baa nabaabiisay coronavirus waa haysanay annagu horu noo dilooday horu noo gumaaday horu noo baabashay maqbuuraan dad u haynaa maqbuuraan dad lagu guraa noo haray ilaa hadda waxay ka dhacaysaa Kismaayo waa coronavirus qabyaaladu waa coronavirus ka hadla iyada hal joojiyo ku booriya dadka wada nimanka dowlad goboleedyada xukuma ku booriya waa ka dhamaatay magaalada Muqdisho waa ka dhamaatay qabyaalada niman mucaarada oo been sheega oo xoolahay xadi jireen laga joojiyay oo dawladaha ruufiyaanka u ahaayeen laga joojiyay oo una qabatayn la geliyo hangol saa dawladdu ugu qabatay baa meelaha ka nacnacleeyo raadiyayaal private inta soo fariista iyo website-yada baqti ku soo qora dayntii lagama cafin iyo been bay sheegahayaan iyo maalin kuma darsan karaan war waa ku darsanayaan 5 sano ay ku darsanayaan maxaad ka qaadi karaan mucaarad baa tahay imaaraad iyo Kenya u shaqeeyo daba dhilife mucaaradka xamar jooga waa Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif iyo intay cagaha ku wataan baan la hadlayaa maxaad ka qaadi karaan maalin kuma darsan karaan 5 year bay ku darsanayaan because muwaadiniin way waa wadaniyin wadankii bay badbaadiyeen ciidamadii bay noo dhiseen wax kasta everything bay qabteen inta hadday qabanayaan waxaan ka aqrinahay website shalay xalay maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah oo ku dhawaaqay dhowr qodobadii ma wada xasuusto because ma qorin wuxuu ku dhawaaqay sanadkan soo socdo wax farxad leh in la helayo ummadda Soomaaliyeed helayso afka law yacdo iyo afka Ras Kamboni iyo Ras Asayr inta ka dhaxla buu ku dhawaaqay waxa wali sirtoodii ma u bixin laakiin farxad buu noogu bilaa hambal yu yiri anaguna hambal yaan leh waxaanu ku farxanan helayna waxa uu kale ku dhawaaqay maaliyadda Soomaaliya inay gaarayso 1.5 billion buu ku dhawaaqay wuxuu kale ku dhawaaqay sanadkan markay dhamaato ciidamada lacagta in loo kordhinayo 560 guna in la siinayo oo USA dollar hambalya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xasan cali khayre hambalyo guuleysta
waxuu kaloo ku dhawaaqay in la qorahayo 7,000 oo shaqaale ah 2020 markay dhammaato January 70,000 oo shaqaalaha la qorahaya وأقول إلهي بان نسوه الحمد لله رب العالمين همبليو 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 فرماجو خير فرماجو خير نبات إيو نولل الله نغو كادي سببتو تضباطن كن أو شغالها القرى هي جنة وريدة سو سعطة لعدت إنه أنت سو ملايين يتجيسا عيدا ماذا واحد الله قرى من $5 أو دولار باي ماث تلفون كودا وقود عيسى هي اللي حدا قلنا هي داودو ديو بناكا لو يرى الله سمعنا يا عيدا ماذا يضا ما هذا أكتين كانوا قلبي كو كلامو كانوا قلبي كو كلامو هنولا تنبضي هنولا دولة ديادو هنولاتو عدو قيدا الله الجبيو marka guula badan buu sheegay odaga ilaa 7 qodob baa meesha ku qoran ma wada qaban waxa weeye waxa kamid ahayd inuu diyaarinayo oo la bilaabay waa la bilaabay hadda la bilaabay sasanki waxa la bilaabay shidaalka qodobkaasuna kamid buu ahaa waxoo dhan 2020 bay ku dhamaanayaan ay ku bilaabanayaan baan ka wada ku bilaabanayaan nimca soo socota barwaaqa soo socota ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo coronavirus annaga waxaa noo qabiilka ilaahu qabiilka naga baabi qabyaalada ilaahu naga baabi qabyaalada ilaahu naga baabi ilaahu ummadayada mide ilaahu ummadayada israaci ilaahayow inta leexato shaydaanku ku hirgisayo rabbigayow qalbiga u daahiriyo soo celi rabbigayow soo celi ku soo noqdo toobadkeena allow ka dhig ilaahayow kuwii toobadkeena ka dhig ilaahayow kuwii ku soo noqda ka dhig ilaahayow kuwii iscafiya ka dhig yaa rabbi yaa raxmaan yaa arxamur raaximiin ilaahu noo naxariiso ilaahu akhriya adduunba noo naxariiso ilaahayow guusha aadna siisay ha naga cishan ilaahu noo siyaadi madaxdayada madax khayr qabta allaha ka dhigo madaxdayadoo dhan allaha hanuuniyo dhammaantood allaha hanuuni kuwan aan dhaliilahayo oo dani iyo maxaan ku iraahdaa kan musabixi iyo kan maxaan ku iraahdaa axmed islaan iyo allaha soo hanuuniyo xaqa allaha tuso mas-uul bay qaadeen xaqa allaha tuso cadaabta allah ka badbaadso cadaabta allah ka badbaadso cadaabta allah ka badbaadso صدق maxaan ku dhahaa 3 milyan bay madax u yihiin oo kitaab u mareen oo mas'uuliyadoodii saaran tahay oo baabacay oo cadaalad darro ka dhargay waa kaasahay ilaahay cadaabka ha idinka badbaadshaan leh saddexdii naas hadda u liita maamulka Soomaaliya waxa waaye musabixi sidii mujrimku u dhaqmaa dani sidii mujrimku u dhaqmaa axmed islaan sidii mujrimku u dhaqmaa ilaahay ka baqa soo noqdo tawbad keena dadka ay cafiya dhaha dawladda la shaqeeya la hadla hala isu tago hala wada hadlo qolaafka iyo qolqolaynta iyo kala xirxirada hanala ka daaya shacabka yagi waa baabacay shacabka yagi maxaan kaloo dhahna ma hadal kala noo allah laga baqo hala soo noqdo caawa intaasan kusoo gabagabaynaya hadalkayga aan rabay hadal badan baan rabay laakiin mar kalaan ka dhiganaya intaasan kusoo gabagabaynaya waxaan idin leeyahay ilaahay ka baqa waxaad maamulka iyo madaxda sheeganayo ilaahay ka baqa madaxweynayaasha ragga sheeganayo maayarada ahow ilaahay ka baqa maayar baad tihiin dowladda dhexaad hoos timaadaan jamhuuriyadda idin xukunta qaata amarka dowladdiina u tagoo la heshiiyin oo fidmada idinkaa wado jaajuusiin u aad imaaraad iyo kenya joojiya dowladdu dambi male meeqa jeeri gogol idin dhigtay meeqa wasiirra idin didhay kaalayaan wada hadal leh kaalayaan heshiinne si adeega iyagu gobolada u gaaro oo dadkaa shacabka aad ku habsateen aanu u taageero waa diideen khaaf rabaq maayarada haysto goboladu jubbaland somaliland puntland maayarada haysto ilaahay ka baqa dadka aad xukumaysaan ilaahay uga baqa gabdhaha ooyaya ilaahay uga baqa wiilasha dilka qorshaysan ku dhimanaya ilaahay uga baqa ragga aad xiraysaan oo caburuseen ilaahay uga baqa wiilasha xaniyaha aad haysaan oo coldoon iyo kamid yihiin oo jeelasha idinku jira ilaahay uga baqa xoreeya wiilasha war ilaahay cadaabta idinka xoreeya wiilasha xoreeya oo xabisyada ka sii daayay kii maadhar oo qof dilay soo maaha ama dila ama qofka ka dilay farta ka saara ka sii daaya xabsiga qaaf rabbuka ما يرضى خاف ربك إلهي كبقى
rabbi waa idinkula xisaabtamaya wallaahi muuse idinku cafinayn waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala khayrka dhan hana waafajiyo masiibooyinka iyo cudurrada xun iyo dunuubta iyo shaydaanka iyo inta xun oo dhan iyo munaafiqiinta sharkooda iyo kaafiriinta sharkooda dhammaantood ilaahay hayna ka xafido ilaahay xafidkiisa hayna geliyo ummadda soomaaliyeed ilaahay ha soo hanuuniyo ilaahay xaqa ha fahamsiiyo qalbigooda ilaahay iimaan ha ka buuxiyo cibaadada allah ha ka aqbalo intay dhimatay allah u naxariisto inta nool allah u naxariisto ilaahay xaqaysa wadada xaqa ku qaada allahina ka dhigo intii naga horeyso dhimatana allah u naxariisto madaxda yada ilaahay cadaalad ha ka dhigo ilaahay qalbiga ha u daahiriyo ilaahay xaqa ha tuso ilaahay ha soo hanuuniyo ilaahay ha sii hanuuniyo horay u sii socda waa la dooginayaan la dacaroon waa la dooginayaan ha la adkaysto oo ha la samro saburku ha bato ha la samro dadkana ha la toosiyo waxa loo sheego ragga wixii qaldama waxa loo sheego xataa dawladda jamhuuriyadda wax loo sheegi karaa dawladda jamhuuriyadda wax loo sheegi karaa oo la oran karaa jamhuuriyaday maxay tahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo maamulkaba waxaana qaldan iyadoon la caayin iyadoon la jaayfaysan iyadoon been laga sheegin iyadoon la masabidan hadal asluub lah wax loogu sheegi karaa waxaan waa qaldan yihiin hal la joojiyo baa la oran karaa sidaan oo kale maamul goboleedyadana hal la joojiyo dani iyo bixiyo joojiyo waxaad wadaan khaaf rabbuka ilaahay ka baqa oo dhibriya dadka ونحن ذاتك هستين نجوجو كتابك أمدين إلهي كبقى نفتان وقوي سمل كمود بايمانية هل كان ربما مركي تمادنا وحلقة أقبلها يا مجنو ربما انتينا إيمان أقبل إلهي النقطة ذات كان عفس ويديست انت ميكروفون قاعدتان waxa gobolka joogo dhan afiyade gobolka Puntland iyo gobolka Somaliland iyo gobolka Jubaland saddexdaas ooshinka galeen ooshinka Allah idin soo hanuuniyo alxamdulillah rabbil alamin waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت سان uga baxaya caawo waa badiyay waliba